السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرين وسلامي. runtii stadium muqdisho oo kamid ahaa garoomadii barsimaadkii dawladii gacanka oo dhistay iyadoo ka helayso gacan wadamada carabta gaar ahaan Dubai ayaa muxuu ahaa waxaana gacan ka geystay Shiinaha dawladda Shiinaha oo iyadoo muxuu ahaa dhismahaasi iyo garoonka muxuu ahaa isbitaalkii Banaadir iyo isbitaalka muxuu ahaa teatrka nationale marka si wanaag dawlad muxuu ahaa Soomaaliya waxay heshay gacantaasi iyadoo marka muxuu ilaa muddo dhalinyaro Soomaaliyeed oo agaasimayaasha muxuu jiray oo dadaal dheeri u galay inay muxuu ka mardaliyaan inay garoonkaasi muxuu ahaa stadium Muqdisho ay muxuu ilaa muddo oo lagu soo tababarayay iyadoo aan garoonka la dhisin ayaa loo diray muxuu ahaa Shiinaha loo diray si ay muxuu u tababar qaataan oo garoonka dib mustaqbalku dhismo marka garoonkii runtii waa la dhisay waana muxuu ahaa 1978 ayaa la muxuu ahaa la soo gabagabeeyay waxaana runtii muxuu ahaa wuxuu ahaa garoon ilaa 30,000 haddii la isku celiyo la cariirsadana waxa waaye ilaa 60 ilaa 50,000 qofood qaadayso waxaana lagu qabtay ciyaarihii muxuu ahaa wadamada carabta nasiibka ku yeelanayna wadamada carabta iyo Afrikaba halkaas muxuu ahaa ay ku ciyaaraan marka garoon runtii caalami buu ahaa Afrikana waxa ka jiray muxuu ahaa waa yara garoon Masar iyo muxuu ahaa wadan kale jiray oo muxuu ahaa garoonkeena camal lahaa وانا محاورتي عيار بدن على وقتي أو أفريقيا محاها تسمدي هريالدي محاها دلك كجري سومالي سياد كوبا قبتي وهي محاها ودمدا جعل محاها سبورتيجا مركز في سيد ودمدا محاها سيد كينيا يو محاها ودمدا كانوا هوا أدبا محاها داو شرودي هدي العيارة يبرون محاها كل قرن عيارة ساركية يوم حقلها دي عيارة سوحة وحسوقه أدبو يرى واتاي إبراهيم دولدي دحاء دالك صومع مشي سيدابة أهمية قارة أسين جرتي هبسم صعد كعيارها يوليبا قرانكي هوشيسا انتي محاها مرحومك محمد البريء وانتي حوق الساري مركو أركي ددوينها صوماليين إني آدو جعلين سبورتيغا ayuu wuxuu abaabulay tartamo oo muxuu muxuu goboleed dugsiyo jaamacado marka sportiga Soomaaliyeed markaas wuxuu maray heer sare waxaana runtii aan dhigi karnaa sportiga Soomaaliyeed muxuu Afrika iyo Aasiya iyo wadamada xataa muxuu Ruushka oo marka la yiraahdo waa tartamo ayaa loo aadi jiray سبورتي محوها سبورتي عادي runtii qiimo oo muxuu ahaa qiimo loo yeelay oo muxuu ahaa hata dadweynaha isdhaxgal la sameeyay oo gobolada markii la yimaado degmo kasabo loo qeybi jiray ciyaartooyda si ay isku bartaan si ay dhacgalaan marka sporti wuxuu ahaa sporti isdhaxgalka bulshada waan gartay hadda garoonkii dib baa loo dhisay tuulada ciyaaraha muhiimad inta leeg buu u leeyahay horumarka ciyaaraha wadankeena ayaad isleedahay والله runtii anaka saad ka warqabtid Afrika muxuu waxaan la ciyaarna marka la ciyaarayno waxaan aadnaa home noo ahaa ama guri noo ahaa wadanka muxuu Djibouti aan walaalaanahay ilaa burburkii wixii ka dambeeyay waxaan maadaama garoonkii muxuu wadankii nabadgelyadiisa aad u xumaa waxaan ku ciyaari jirnay muxuu home noo ahaa haddii ciyaar muxuu ahaa labada dhinacba markii wada ciyaaraya marna waxa waaye waxa lagu ciyaaraa wadanka muxuu ahaa waa tagaysid waxaan la wadan markii la ciyaartid wadankaaga inaad ku martaqaadid laakiin waxa waaye markii burburka yimid waxaad moodaa wixii dhamaa inay dib weyn soo gaaray waxaan rajaynaynaa aad iyo aad u rajaynaynaa wuxuu ahaa inaan soo ceshano homekii inaan soo ceshano waxaan cudurkan muxuu coronavirus ayaa runtii wuxuu dhaawac weyn u geystay horumarka sportiga Soomaaliyeed waxa muxuu ahaa ujeedada maanta camal waxa ay ahayd inaan
ay wada ciyaaraan wadamada muxuu ahaa jaarka nahay sida muxuu ahaa Djibouti Eritrea muxuu ahaa iyo muxuu ahaa wadamada muxuu ahaa jiiraanka sida Uganda inay yimaadaan homeka muxuu ahaa inta halkaan si lagu ciyaaro oo noo furmo muxuu ahaa homekii ina muxuu ahaa maadaama ay muxuu ahaa garoonka dhisanay inaan muxuu tusno muxuu ahaa garoonka inuu diyaar yahay aan ku martiqaadno muxuu ahaa wadamada aan saaxiibka nahay si aan muxuu ahaa ay meeshii muxuu ahaa ay ka baabaado waa arrintii muxuu ahaa homekii aan aadi jirnay walaalaheena runtii gacan weyn bay ka geysteen Djibouti markaan tagno si gurigeena camal ayuu ahaa maanta waxaan rajaynaynaa wixii hadda dambeeyo inay homekii soo cesho doon haddii ilaahay waa taa aad baad u mahadsantahay waan ku mahad celinayaa